Wanlaweyn waxaa todobaadyadii dambe laga soo warinayay dil barakac iyo warar kale oo aan u wanaagsanayn bini'aadanimada. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa nabad waarta dhex dhigay beelihii diriirtu ay dhex martay si loo hubiyo dhaqangelinta heshiiska iyo in bulshada ku dhaqan Wanlaweyn iyo deegaanada hoos yimaada la gaarsiiyo nabadda. Ayaa mas'uuliyiinta waxa ay gaareen deegaanka Yaaq Biriweyne oo ka mid ah deegaanada ay ku barakaceen dadka. gaadiidka codbaahiyaha ee ciidanka danab xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gaarsiinayay dadweynaha in wixii hadda ka dambeeya nabadda laga shaqeeyo. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Colonel Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka looga baahan yahay in ay daadajiyaan nabadda iyadoo aan laga gorgortamayn nabadda magaalada. dhalinyarada deegaanka aheed ama u dhalatay meeshaan ee gobolada meelaha kale ka yimid ee colaadda iyo dareenka u yimidna waxa la rabaa inaad u sheegtaan inay ku laabtaan shaqooyinkoodii haday geel raacayeen iyo hadii ganacsanayeen meeshood inay ku laabtaan aan rabnaa inaad gaarsiisaan. annagu halkaan waxaan u joognaa nabad. waxaa lagu heshiiyey dadkii qof kasta meeshuu ka soo tagay oo ama ka soo barakacay colaadda ku saameysay inuu ku laabto. waxaa lagu heshiiyey isbaaro inay dhamaato. waxaa lagu heshiiyey qof dhibaateeyay inuu qof yahay oo san qabiil ahayn. Wanlaweyn sidaas aan u soo sheegnay dadkii magaalada dhinaci kale oo colaadina dhex martay sidaas aan u soo sheegnay. idinkana saas u ogaada qofkii qof dhibaateeya maanta wixii ka dambeeyo waxa waaye wuxuu maraa nidaamkii iyo sharciga dawladdu maraa. ciidamada dawladana soo qabanay idinka iska soo dhaxsaara sheegay kaasa dhibaateeyay anaga raali ka mudin indhaha. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in sharciga qofna ka weyneen cidii ku xadgudubta nabadda deegaanka sharciga la marsiin doono. qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed ah qaasatan labadan beelood cid walba meesha ay deganeed way tagi kartaa. cid walba goobtay ka shaqaysanaysay way aadi kartaa. cid walba shaqadii caadiga ahayd ee colaadan ka hor ay ku jirtay ha aado. amnigan waxaa damaanad qaadaya ciidankan xoogga dalka Soomaaliyeed guutada 7 iyo ciidamada danab ayaa damaanad qaadaya. annaga safarkan u socono waa kaas kanaan odayaasha isla soo qaadanay waa kaas. idinka dhalinyaradan waxa la idinka rabaa kaas inaad nala qaadataan. haddii alla idmana waxaa naga go'an qof dambiile ah hadduu jiro oo xadgudub sameeya dawladda ayaa soo qaban doonta. qabiilna ma aha, waa nin dambiile ah oo raba inuu dadkan ku mashquuliyo dana gaar ah in la soo qabtana ciidamada fasax ay u haystaan. wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa adkeeyay hirgelinta amni buuxa. marka waxaan rabnaa qof nabad qabo oo aan rabshada qayb ka ahayn inuusan ku waxyeeloobin wax munaafiq sameeyay uusan garab istaagin qofkaas xagga iyo xaggaaba inaan banaanka keenno sida gudoomiyaha uu sheegay. ninkaas gabadha kufsaday, ninkaas ninka dilay, ninkaas wax dhacay, ninkaas wax leeyay, asaa la tacaalaya, asaa la qabanaya, asaa sharciga la marsiinaya. annagana nabadaan ku noolaanayna, qoomka kale nabad ay ku noolaanayaan. guud ahaan Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya oo dhan nabada loogu noolaanaya. marka waxaan isla qaadanayaan filaa dhalinyaroy inaan nabadda ka wada shaqeyno Soomaan. guddiga baarista ayaa wada shaqooyinkooda iyagoo maanta wax ka weydiinaya xaaladihii dhacay gudoomiyaha degmada Wanlaweyn iyo taliyaha saldhigga booliiska ee magaalada. labada dhinac ayaa lagu wargeliyay wixii hadda ka dambeeya cidii jabisa awaamirta dawladda in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku qaban doonaan gacan bira iyadoo bulshada ku dhaqan deegaankan laga wacyigeliyay dhibaatada ay leedahay qabyaaladda. Mohamed Ali Omar Jubba, raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed degmada Wanlaweyn gobolka Shabeellaha Hoose.